hogaamiyaha Mareykanka Joe Biden ayaa u safri doona Israa'iil, daanta galbeed iyo boqortooyada Sacuudiga bisha soo socota. Sargaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa warkaani si rasmi ah warbaahinta Mareykanka uga soo xigatay. Hadalka sargaalka waxa uu soo afjarayaa hadallo bilihii ugu dambeeyay la isla dhexmarayay kuwaasi oo intooda ugu badan ku saabsanaa booqashada Biden ee bariga dhexe. socdaalka madaxweynaha Mareykanka ee bariga dhexe waxa uu qaadan doonaa Julaay 13 ilaa 16 bisha soo socota, waxaana inta socdaalka madaxweynaha uu socdo uu la kulmi doonaa mas'uuliyiin sarsare oo ka kala imaan doona gobolka iyo meelo kale, sida sargaalka uu dabcan sii sheegay xilli uu ka hadlayay socdaalka Biden iyo muhiimadiisa. booqashadiisa ugu horeysa waxay noqon doontaa Israa'iil, ayuu yiri sargaalka oo qadka telefoonka kula xiriiray isagoo raaciyay. Tani waxay noqon doontaa booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne Biden uu ku tago dalka isagoo madaxweyne ah, waxayna imaanaysaa ku dhawaad 30 sano kadib booqashadiisii ugu horeysay Israa'iil isagoo ah senator da'yar. war qoraal oo lagu faahfaahinay jadwalka madaxweynaha, afayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in Biden uu la kulmi doono hogaamiyaasha Israa'iil si uu uga hadlo amniga, barwaaqada iyo isdhexgalka sii kordhaya Israa'iil ee gobolka. wadahadallada uu ku qabanaya Israa'iil kadib madaxweynaha ayaa u ambabixi doona dhulka la haysta ee daanta galbeed Falastiin si uu ula kulmo madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas iyo mas'uuliyiinta kale ee Falastiiniyiinta. Biden wuxuu rajaynayaa inuu dib u xaqiijiyo go'aankiisa nololeed ee ku saabsan xal laba dowladood ah iyo inuu ka hadlo siyaabaha aan dib ugu soo nooleyn karno aragti siyaasadeed oo xaqiijin kara tilaabooyin siman oo xorriyad, ammaan, barwaaqo iyo sharaf ay u leeyihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta si isku mid ah. sargaalka ayaa sidaas u sheegay suxufiyiinta. kadib booqashadiisa daanta galbeed, Biden waxa uu safri doonaa Jeddah, Saudi Arabia, halkaas oo kaga qayb gali doono shir madaxeedka golaha iskaashiga Khaliijka, Masar, Ciraaq iyo Jordan oo loo yaqaano GCC+3. wadahadallada madaxweynaha ee Jeddah waxa uu sidoo kale dabcan afayeenka aqalka cad ay u sheegtay suxufiyiinta in Biden uu dhigiisa kala hadli doono arrimo badan oo labada dhinac quseeya, waana qadiyadda gobolka iyo kuwa caalamiga ah. taas waxay ka mid tahay in la taageero xabad joojinta ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysa ee Yemen, taasoo keentay xilligii ugu nabadda badnaa ee halkaasi ka dhacay tan iyo markii uu dagaalku bilowday 7 sano ka hor, ayay tiri afayeenka aqalka cad. wuxuu sidoo kale ka hadli doonaa siyaabaha loo ballaarinayo iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga gobolka oo ay ku jiraan kaabayaasha cusub iyo kuwa rajagelinta leh iyo hindisayaasha cimilada, iyo sidoo kale ka hortagga khataraha Iiraan, horumarinta xuquuqda aadanaha iyo xaqiijinta tamarta iyo ammaanka cuntada adduunka, ayay tiri afayeenka aqalka cad. afayeenka aqalka cad oo hadalkeeda sii wadata waxay ka hadashay nuxurka socdaal ee Biden ee boqortooyada, waxaana ay tiri in marka ugu horeysa Biden uu bogaadinayo hoggaanka boqor Salmaan iyo martiqaadka uu u fidiyay. docda kale waxay sheegtay inuu madaxweynaha dabcan rajaynayo booqashadan muhiimka ee uu ku tagay Sacuudiga inay door mugle ka qaadan doonto saaxiibtinimada istiraatiijiga ah ee u dhaxaysa Mareykanka iyo boqortooyada muddo ku dhow 80 sano. wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa xaqiijisay maanta oo Talaado in booqashada ay qaadan doonto inta u dhaxaysa 15 ilaa 16 Luulyo. tagitaanka Biden ee boqortooyada kadib waxaa jira kulan gaar ah oo ay yeelan doonaan hogaamiyaha Mareykanka iyo dhaxal sugaha awoodda badan ee dalka Sacuudiga. mar suxufiyiintu ay weydiiyeen in madaxweynaha uu la kulmi doono dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman iyo in kale, sargaalkan ayaa sheegay in Biden uu la kulmi doono dhigiisa iyo hoggaanka Sacuudiga. marka waxaan filan karnaa madaxweynaha inuu arko amiirka dhaxalka leh, ayay hadalkeeda intaasi ku sii dartay. Biden ayaa muddo dheer ka soo horjeeday inuu la fadhiisto bin Salman, kaas oo sirdoonka Mareykanku ay go'aamiyeen inuu amray dilkii foosha xumaa ee 2018 loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul saxafiga Jamal Khashoggi. madaxweynaha ayaa sheegay sanadkii 2019 in boqortooyada Saudi Arabia dilka saxafigaasi loo geystay uu ku yahay mid fool xumo ah oo dhaawacaya sumcadda iyo magaca guud ee boqortooyada iyo karaamada hoggaanka dalkaas.
madaxweyne Biden ayaa inta uu sidoo kale Sacuudiga ku sugan yahay hoggaanka boqortooyada waxa uu kala hadli doonaa arrimo qusay xuquuqul insaanka maadaama boqortooyada hoggaankeeda lagu eedeeyo in ay ku yara liitaan habdhaqanka xuquuqda aadanaha waa sida ay Washington u aragtay mar walba xiriirka Sacuudiga mudnaan gaar ah ayuu inoo leeyahay Riyadh iyo Washington waxay leeyihiin ahdaaf gaar ah waxaan diyaar u nahay inaanu xoojino xiriirka Sacuudiga aan la leenahay kaasi oo saaxiibka istiraatiijiga ee Mareykanka marka aanu fiirino sooyaal ku dhow muddo 80 sano ayuu dabcan madaxweyne Biden marar badan qiray